السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan kulligeen waynu ogsoonnahay in geysashada dil uu yahay waxa ugu foosha xun ee uu geysto qofka bini'aadamka ah taas oo aan jirin sabab ama baqiil uu ku banaysan karo qofku dhiigga qofka kale ilaa xadadka iyo sharciyada nafartay diinteena suuban ee islaamku mooye haddaba qalkanan maanta waxaanu kaga hadli doonaa gabadh dad dhan u leysay ama badishay iyadoo ku sababaynaysa ama baqiil uga dhigaysa muuqaalkanan maanta aynu kaga hadli doonaa waxay ku sababaysaa ama baqiil ay uga dhigatay gabadhani dilka dadkaas magacayga waxaa Cabdimajiid waxaan kusoo gudbinaa kanaalka mawaadiic iyo dhacdooyin xaqiiqa ah fadlan haddaad nagu cusub tahay kanaalka kusoo biira subscribe taabo gambaleelka ama bajeliska yaro si uu kusoo gaadho muuqaal kasta oon kusoo gudbino barteena mahadsanid waxaa lagu magacaabaa gabadha qisadeena maanta ay ku saabsiisan tahay Brenda Spencer waxay dhalatay 3 Abriil gabadhani sanadkii 1962 waxaana ay ku dhalatay dalka Mareykanka xaafad lagu magacaabo Santa Carlos ee gobolka Santiago ee ismaamulka California waxay Brenda Spencer ay ahayd mid la nool aabaheed sababtoo ah waa isfureen aabaheed iyo hooyadeed amaba waa ay kala tageen iyadoo ay da'deedu tahay mid aad u yar waxaa ka agdhawaa guriga ay kula nooleed aabaheed Brenda Spencer school amaba dugsi lagu magacaabi jiray Cleveland Primary oo ay dhigtaan carruurta yaryar ay bilowgii nolosheedaba gabadhani la kulantay dhibaatooyin aad u badan oo ay ka mid ahaayeen aabaheed oo ahaa mid aan daryeelin sababtoo ah waxa uu ahaa mid iska dib jir ah oo aan mar ka saarin khamriga iyo maandooriyaha dhammaantii mid kasta oo ay noqoto heer ay gaadhay xaaladda faqiirnimo iyo dayacnimo in iyada iyo aabaheed ay ku wada seexan jireen hal fadhi amaba hal furaash sida doontidba u qaado oo intaas kadib waxay Brenda Spencer aad u jeclay sawir qaadida oo xitaa mar ayaa waxay ku guuleysatay heerka koobaad tartan ay ka qayb gashay kaas oo ku saabsanaa sawir qaadida laakiin sama aysan ku fiicnaan dhanka barashada ama iskuulka oo heerkeeda waxbarasho waxa uu ahaa mid aad iyo aad u hooseeya waxaana ay ahayd mid mar kasta ku dhex seexata inta lagu guda jiro xiisadaha iskuulka waxaana intaas u sii dheeraa in ay ahayd gabadhani mid aan jeclayn iskuulka oo qalqaal ah ama dhib badan waxaana ay gaadhay heerka mashaakilaadka ama dhibaatooyinka ay ka dhex geysatay gabadhani lagu magacaabo Brenda iskuulkeeda inay ka soo ashkatoodeen ama ka soo dacwoodeen ardaydii ay la dhigan jirtay iyo xitaa macallimiintii adigu qofna ma ay dhaafin gabadhani waxay ahayd mid aad iyo aad u dhib badan markay noqoto dhanka iskuulka waxay Brenda Spencer ku tilmaalin maalmaha kamid ah ardaydeed in ay dhici doonto maalin ay qof dili doonto ay jaraydada dhamaanba saxaafadda hadal hayn doonto magaceeda taas kadib markay gabadhan ay joojin weyday mashaakilaadka dhibaatooyinka ay ku haysay iskuulkeeda ama dugsigeeda waxa uu go'aansaday maamulihii inuu bal dhakhtar u geeyo si loo baaro fayownimada ama badqabka caafimaadka ee maskaxdeeda gabadha baaritaano dheer kadib waxa la ogaaday in nabar kaga yaala meel kamid ah maskaxdeeda gabadha lagu magacaabo Brenda Spencer nabarkaas oo sababtiisa uu lahaa ama sida ugu dhacay iyadoo wadata maalin maalmaha kamid ah baaskiil ay ka dhacday kadibna uu soo gaaray nabarkaasi waxaana gabadha nabarka maskaxda kaga yaala uu u sababaa dadka in aanay ku sugnaanin xaalad gooni ah yacni uu mar xanaaqsan yahay mar cadhoonayo mar faraxsan yahay oo aanay ku sugnaan xaalad gooni ah waxaana nabarkaasi dadka uu kaga dhaco maskaxda u sababaa in uu isdilo oo nafta isdhaafiyo almuhim waxay Brenda qaadatay dawooyin laga soo siiyay dhakhtarkii sanadku markuu ahaa 1987 Abriil waxay ku beegnayd gabadhan lagu magacaabo Brenda Spencer dhalashadeedii waxaana aabaheed ka dalbatay radio record sidaad u taqaanidba inuu soo iibiyo ama uu soo gado oo uu hadiyad ahaan uga dhigo balse waxa la yaab lahaa waxa uu aabaheed hadiyad ahaan uga dhigay waxaas uu hadiyada uga dhigay ahaa mid kamid ah qoryaha lagu ugaarsado shimbiraha oo ay u dheer tahay welibana 500 oo rasaaste qorigaas ahay isla maalintii uu qoriga aabaheed u keenay waa la xidhay Brenda Spencer talo maxay ahayd sababta lagu xidhay ayaa ahayd daawada isla maalintiiba inay daaqada ama dariishada guriga ay deganaayeen iyada iyo aabaheed ay kala soo baxday qorigii uu hadiyadeeyay ama uu siiyay aabaheed iyadoo isku dayaysa inay ku ugaarsato shimbiraha geedaha saaran ama hawada duulaya intaas kadib markay ay arkaan jaarkii ka agdhawaa gurigii ay deganeed Brenda Spencer waxa ay u cabsadeen nafahoodii waxaana ay arkaan gabadhan yar qoriga sidata ee marba shimbiraha hawada maraya mid isla ku dhufo waxaana ay arrinkaasi wargeliyay jaarkeedii waxaana ay wargeliyeen booliskii arrinkeeda markay ay soo gaadheen askartii way xidheen Brenda waxaana ay u duwan ama geeyeen meelaha lagu daweeyo dadyoga maskaxdoodu si tahay ama ay ka jirin tahay almuhim waxa uu warkii gaadhay aabaheedii isna waxba dhaamin inantiisan xagga waalida inantiisii Brenda ahaydna waa uu diiday in la daweeyo ama in lagu dhex daweeyo jeelkaas dhexdiisa inantiisa waana uu soo daayay Brenda waxaana askartii u soo celisay qorigeedii sidii ay hore u soo xusanayna waxay gabadhan ahayd nacab iskuulka ay wax ka barato gaar ahaan maalinta Isniinta sababtoo ah dawladeena Islaamka waxaynu leenahay maalmo gaar ah oo ku jira toddobaad kasta fasax leenahay sida maalinta Khamiista iyo Jimcaha laakiin si xagga kale dawladaha reer Yurub iyo Ameerika ama dawladaha Afrikaanka qaar kamid ah waxay fasax leeyihiin maalmaha Sabtida iyo Axadda sidaas awgeed waxay maalinta Isniinta ay ahayd maalinta la dawaamo
ee iskuulka la tago ee ugu horeysa sideena ama xaggeena maalinta Sabtida oo kale. Intaas kadib waxay gabadhii Brenda Spencer ahayd soo kacday maalin kamid ah maalmihii Isniinta ahayd iyadoo caadeysan ama xanaaqsan, waxaana ay kala soo baxday gurigii iyadoo sidatay qoriga aabaheed ugu keenay hadiyada, waxaana ay u jeeysatay iskuulkeena hore u soo xusnay ee ka ag dhawaa gurigeeda ee ay dhigan jireen carruurta ama primary-ga ahaa. Almuhim waxay Brenda gudaha u gashay iskuulkii primary-ga ahaa, waxaanay bilowday inay ku furto qorigii rasaasta ku jirtay ee aabaheed u keenay ardaydii ku guda jirtay iskuulka, waxaana ku dhaawacmay rasaastaas gabadhan ay ku furtay 8 carruur ahayd oo dhigan jirtay iskuulka, waxaana ay dishay rasaastaasi amaba ku dhintay 2 qof oo kala ahaa macallimada iskuulka wax ka dhigi jirtay iyo washmaankii amaba gaadhkii iskuulka. labadaas qof ayaa ku dhintayna rasaasta gabadhan. Isla markiibana waxay dadkii ka ag dhawaa iskuulku wargeliyeen booliskii sida ay xaaladdu u qasantahay. waa uu soo gaadhay booliskii iskuulkii, waxaana la geliyay square amaba go'doon. intaas kadib waxay mid ka mid ah askartii isku dayay bal inuu qabto gabadhan rasaasta ku furtay iskuulka, laakiinse waxay ka horgeysay oo ay ku dhufatay xabad askarigii, balse ma ay dileen xabadii oo ay dhaawacday askarigii. waxaana Brenda degdeg u gashay inta ay ka soo baxday iskuulkii gurigoodii oo sidii aan hore u soo xusnayba ka ag dhawaa. markii ay aragteen askartii inay Brenda si degdeg ah uga soo baxday iskuulkii una gashay gurigeeda oo ka ag dhawaa, way hareereysay ay gashay oo dhan. laakiinse arrinka yaabka leh ayaa ahaa Brenda markii ay gashay gurigii ay garaacday amaba wacday telephone numberkii laba ka mid ah jaraa'idadii ka soo bixi jiray magaaladeeda Santiago. jaraa'idadaas oo ahaa kuwa ugu waaweynaa waqtigaas amaba ugu caansanaa. waxaa ka mid ah jaraa'idadaas mid lagu magacaabo The Tribune, waxaana ay sheegtay in dhacdadii amaba rasaasayntii iskuulka ka dhacday xoogaa amaba saacado yar ka hor inay iyadu amaba Brenda ahaan dambeysay. sababta ay falkaas intaa lag ay u geysatayna inay ahayd nacbad maalinta Isniinta iyo badanaa. marka ay intaa u sheegtay jaraa'id waxay u soo baxday Brenda dibadii guriga oo ay isu dhiibtay askartii banaanka taagnay iyadoo aan wax iska caabinaha samayn, waxaana lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. waxay iskuraanba waqtigu ay Brenda Spencer ku jirta xabsiga. waxa sanadku markuu ahaa 1993 ama 93 dib loo furay kiiskii Brenda si looga khafiifiyo xukunka, laana waxa jira sharci dhigaya dalkaas Mareykanka markasta waqti ka soo wareego kiiska qofkaas amaba xukunka qofkaas in dib loo indhaandheeyo kiiska qofka. intaas kadib markii la soo istaajiyay la weydiiyay Brenda ma haysaa sabab aynu kugu sii deyn karno amaba kaaga khafiifin karno xukunka, waxay ku jawaabtay Brenda inaysan naankeedu joogin waqtiga ay geysanaysay falkaas aadka u fooshka xun. laakiinse markii ay feelasheedii dib loogu noqday waxaa la ogaaday inay taam ahayd oo aanay cabsanayn, sidaas awgeedna waxaa dib loogu celiyay xabsigii. haddana markii ay ku beegneyd 2003 ayaa waxaa la hor keenay maxkamadda sidii caadada ahayd oo kale. sida caadada ahaydna waxaa la weydiiyey ma jirtaa sabab aynu kugu sii deyn karno, waxay ku jawaabtay se markan inay sabab u ahaa falkaas ay geysatay aabaheed oo u geysan jiray tacadiyo amaba dhibaatooyin dhan walba ah, laakiinse waa uu diiday aabaheed oo inkiray iskana diiday eedahaas ay intiisa u soo jeedisay. waxaana mar kale dib loogu celiyay xabsigii, waxaana ay mar saddexaad la soo hor istaajin doonaa Brenda Spencer sanadkan ay ku guda jirnay 2021 ama 2022. waynu eegi doonaana sida uu xaalku noqon doono. ugu dambeyntiina waxaan muuqaalkan maanta ku soo gabagabanaynaa in waalidiintu ay mas'uul ka yihiin ilmaha marka uu yar yahay, sababtoo ah geedku marka uu yar yahay ayaa uu awood u leeyahay in la toosiyo markasta uu qalloosamo. qofkuna waa sidaas oo kale markasta uu dhalan yahay ayaa ay tarbiyadda iyo toosintiisu ay ka fududahay markasta uu weynaado. markaas waalid ku dadaal si aad ilmahaaga yar u toosin lahayd amaba tarbiyan lahayd markasta uu yar yahay. muuqaalkan maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. intaan ku kulmi doono muuqaalkayga waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan hadduu ku cajabiyo muuqaalkani amaba aad wax ka faa'iiday like saarna wadaag asxaabtaada. mahadsanid.